السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أنيقو أم معلم خالد محمد يتم كساد سوفت وير كله دمانتين ودا له سلامة دبا 10 ka waxaynu ku eegi doonaa waa lesson keen lixaad isla markaana inoo aha casharadii imtixaanaha ay Windows 10ka bal insha Allah 10 kan waxaynu ku eegi doonaa personalizing your start screen hadaba aynu bal wax ka badbadal ku sameeyno start screen kaaga dabcan waxaynu soo aragnay casharada aynu soo aragnay waxa kamid ah sida lock screen ka wax looga bedelo iyo sidoo kale sida account picture ka wax looga bedelo hadaba markan iyo waa markii start screen ka to move an application sidee baan application start screen ka saaran aan u qaadi karaa oo marba meeshan doono u geyn karaa dabadna waxa la si aad u qaadid baa la click ta ku qabo dabadna hold and drag garee dabadna click-ta markaad ku qabato click baa la click-ta hold ku qabo dabadna and drag garee baa la the application kaaga to the desired location adigoo dhaqaajinaya location ka ama hadba jihada aad rabto dabadna markaad meesha geyso waxa la release the mouse ka gacanta ka qaad application kaagi will move wuxuu tagi doonaa to the new location booska cusbaayad geysay ayuu tagi doonaa dabcan start screen ku waa kan dabcan tusaalahan application kaas ayaa waxaan u baahday inaan meelahan oo kala dhigto waxaan sameeyaa click ayaan ku qabanayaa dabadna drag dabcan waad aragtaa inaan hadda jiidayo isla markaana halkaas ayaan dhiganayaa haddii aan rabo inaan booskiisa ku celiyo click uun ku qabanayaa dabadna drag waan jiidayaa ilaan ka geeyo booskiisa dabcan sidaas ayaan u qaadi karaa application kayga una kiin karaa meesha aan rabo casharkan inuu eegi doono sidoo kale waxa kamid ah to turn lifestyle of sidee baad ku dhaqdhaqaaq sameynaya uga dhigi kartaa kuwa aan dhaqaaq sameynaynin dabcan marka rabtid muxuu ahay kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya aad ka dhigto kuwa aan dhaqdhaqaaq sameynaynin marka ugu horeysa waa inaad haysataa waxa loo yaqaan Allahumma musta'an ala ma tasifune waa inaad haysataa waxa loo yaqaan kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya haddii aadan dabcan haysan kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya waxaad ka dhigaysaaba markaas yaani ma garanaysaa xaaladeedu isbedelaysa balse laakiin marka ugu horeysa waa inaad haysataa kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya markaad rabtid marka inaad ka dhigto kuwa dhaqdhaqaaq sameynaynin kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya right click baad siinaysaa kadibna markaad right click siiso dabcan aad right click siiso waxaad kali garaynaysaa amarka lagu magacaabo turn lifestyle off oo dabcan meelahan kaaga soo bixi doona saa darteed waxaad sameynaysaa amarkaas ayaad kali garaynaysaa hadda dabcan anigu waxaan haysan kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya ayaan haysan waxa lagu yiri marka doonaysid inaad yaani ma garanaysaa kuwa dhaqdhaqaaq sameynaya aad ka dhigto midaan dhaqdhaqaaq sameynayn right click garee baa leeyahay application ka you want to doonaysid to change inaad wax ka bedesho dabadna click waxaad kali garaysaa amarka lagu magacaabo turn lifestyle off ayaad kali garaynaysaa dhamaan casharka kale aan qaadan doonaa waxa weeye unpin application from the start screen sidee baad application uga qaadi karaysaa start screen ka dabcan waa inaad application kaaga marna start screen ka aad ka qaadi kartaa marna aad keeni kartaa saadarteed waa inaad ka qaadi kartaa marka ugu horeysa marka doonaysid inaad ka qaadid from the start screen waxaad taabaligu start screen kaaga kadibna right click si baa leeyahay decide application ka rabtaa inaad start screen ka qaado dabadna click garee baa leeyahay unpin from the start screen waxaad click gareysaa amarka lagu magacaabo unpin from the start screen the application ka will disappear lagu arki maayo from the start screen kaaga lagu arki maayo dabcan ay tijaabino application kan ayaan waxaan rabaa inaan ka qaado waxa loo yaqaan start screen kayga marka ugu horeysa waxaan right click garanaya application ka dushiisa kadibna waxaan dalbanayaa unpin from the start screen isla markaana waan ka qaaday haddii aan rabo inaan application kan oo ka keenana right click baan siinayaa kadibna markaan right click siiyo waxaan dalbanayaa pin to start screen dabcan waaniga keenay booska application ka horena waxaan ku soo bedelay kaas ayaan ku soo bedelay sidoo kale casharkeena halkaas ayuu inoogu egyahay intaana casharkan oo kale aan ku kulmi doono dhamaantii waxaan ku dhaafayaa wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh